دقنا شيء انتو القلبة المتري كاري حلك الدوبر تاري ودورنا يدادي بشر إبداده نندو عيسانو أنا حلبانك ودورشة كلية أيوه هرسنتهاي الدقة دير علي سعيد بشير علي سعيد عند كوري سودو كلنا بنديرلي هالكاري وهويجي نبضة وهويجاجي وماشي متقارنا نبضة أي بلغت كأساس بترتي ومن لقاش عليها هذه هذا كوسو دويننا بدك بشير علي سعيد وحرنا عن مشرح سودو كوسو دو بنديرلي كوسو دو بوشة runtii u abaabulan in ay doortaan dhalinyarada haldoorka ah oo runtii og deegaanadooda ka warqabo maadaama dalku uu noqday doorasho qof iyo cod ah hadaynu nahay dhalinyarada waxaan ku baraarugsannahay oo rabnaa sanadkan inaan doorno haddii ilaahay idmo dhalinyarada waxgalka ah oo aan isleenahay deegaankeena ka warqabo oo aan ka imaan dibadda sidaas la'alligeed marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay Bashiir soo dhawow mas'uuliyadda agoobiisna waxaan leenahay insha Allah haddaan nahay dhalinyarada iyo bulshada gobolka Mudugba dhalinyarada ayaa sanadkan soo bixinayna waan heli doontaa waxyaalaha qabanaysa kala ballami mayno waxa tahay nin dhalinyarada dalka joogay oo aan qurbo joog ahayn marka waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow bulshada reer Bandireena waxa leenahay Bashiir Ali Saciid marka ka furan male waxa leenahay Bashiir soo dhawow ku soo dhawow degmada Bandireeley degmada waxay ku aan tahay soo dhaweynta iyo nabadda iyo walaalnimada iyo galgacaylka qof kasto musharax oo yimaada sidaas la mid ah loo soo dhaweeyay adigana galabta ku soo dhaweyneynaa waa degmadaadii waa degmada u dhalatay marti kabati xisbiga aad ka tartamaysidna waa xisbiga dawligaada maxaan ku yiraahdaa aad maaragtay xisbi la wada garanayo weeye waa waxaan leenahay Bashiir soo dhawow Bandireeley ku soo dhawow gacno furan ku soo dhawow Bandireeley oo taqaana inta badan qofka u imaanaya waxa qabadkiisa iyo noloshiisa anagoo garanayna in Bashiir tahay wadankana aan badan ka soo shaqeysay kulay ragii noo imaanaya waxa isleeyahay oo ka mid yahay ninkaani intii dalkana in badan ka soo shaqeysay kana warqabtay haduu naga maqan yahayna noo maqnaa haduu nala joogana noo joogay buu ka mid ahaa marka waxaan leenahay soo dhawow min dhalinyarada tahay oo ku soo dhaweynayna gacno furan baa kugu soo dhaweynayna xilka aad goobaysid Allah kugu asturo ilaahayna ku qabto dawladana waxaan leenahay iyo dadka shaqada dawliga ah haya hormaanta dhalinyarada nala soo saaro ayaga bahalkaaliya dalkaas ma tabixin kareen musharax xildhibaan soo dhawow baan ku leenahay ku soo dhawow degmadaadii ku soo dhawow dadku jecel waxaan kaloo rabnaa inaan kuu sheegno waxa tahay dhalinyaradii firfircooneed ee deegaankan u soo baxday oo raba inay deegaanka wax u qabtaan xilalna ay ka qabtaan marka koobaad waxaan ku leenahay xilka horta Allah kuu sahlo si fudud xildhibaanana waa ka soo horeeyeen xildhibaano kalena waa musharaxiin waa ka soo horeeyeen musharaxiin kalena waa ka dambeeyaan nasiibkaaga qabtaa marka insha Allah way Bandireeleyna waxa leeyahay qofka wax galka oo aan wax noo qaban kara codkeena siino insha Allah codkeenana waa ku siideynaa hadii ilaahay idmo mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan ku leenahay musharax soo dhawow dadkaagii ku soo dhawow musharax soo dhawow waa reer Bandireeley waa ku jecel yihiin deegaankaagu waa ku jecel yahay musharaxnimada ku taageerayna nin dhalinyarada firfircoon baa tahay laakiin hal baa laga rabaa maanta dhalinyarada xaaba lagu shaqeeyo hadii ilaahay xilka kugu gooray dhalinyarada dantooda ina u sheegtid oo xaabada lagu shaqeey iyo siyaasiga doobinaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala ilaahay ka badbaadiyo dhalinyarada meel bay ku dhamaatay marka maanta nolosha yarta oo istiimaysa ilaahay maaragtay ka nooga dhabeeyo Bandireeley ku soo dhawow musharaxnimadana ilaahay kugu guuleeyo waa kugu ducaynaynaa soo dhaweysaan musharax xildhibaan Bashiir Ali Saciid oo u sharaxan ama u tartamayo goraha wakiilada dowlad goboleedka Galmudug waxaan rajaynayaa insha Allah kulamada dambe xiga kuwan anagoo isku maxabaynayno oo guuleysanayna sugu imaana idanka Ilaahay mar kale Bandireeley soo dhaweyntii milgaha iyo diiranaanta iyo sharafta badneed ee noo sameeyeen waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin
waana ku ogeyn waana ka filanaynay waana rajaynaynaa intaani ka badanba inaan noo ahaato كل كلن كاني وكل ماذا صوص دافور يهي ما نقول دونا كي قدام بي إذا كإلهي مركز علينا يسودو بشير دنيرة عادي ديجان كاجي فلكي إنت كانوا كوباهن نقلبت وكجرب تاجن تهي سودو ما كلنا عرف تاجن قاعد دونتا أدي أدنى وشيت كهلك أنا وشوقنا وياهي بشير علي سعيد عند كوري أو حلبان وتاجن oo nin dhalinyaro oo firfircoon oo nin wax bartay oo dawladaha iyo maxaan ku iraahdaa dawladda la dhaqan ah oo dawladaha wax ka bartay oo yaqaana ma arka si dawladnimada loo maamulo in badan ama wasiirro ula soo shaqeeyay ama maxaan ku iraahdaa dawlad uu ku dhex jiray muddooyinka u dambeeyay ahaa ilaa dhowr iyo 10 sano soo daadiisu yartay buu dawladda dhex galay xildhibaan buu ma aragtay rajadiisu waa fiican tahay Allah u rumeeyaan leenahay xildhibaan wuxuu doonayaa golaha wakiilada galmudug hadda ka horna halkaan xaflad ku samaystay asaga iyo rag kale marka ila soo dhaweeyay xildhibaan soo dhawow baan leenahay xafladan aadkii aad nasiibkaadan soo dhaweynta xildhibaanka Bashiir Ali Saciid waxaan leeyahay Bashiir ku soo dhawow Bandiirley aad iyo aad amaantaada inta horena waa sheegtay anaguna waa ku daraynaa amaantu iska sheeg maahna waa wax jiro la wada og yahay nin dhalinyaro waxa tahay firfircoon dalka iyo deegaankana u dhashay goobahanayana maantay cod aad malaynayso inuu gacanteeda ku jiro waxaan leenahay adigoo maadaama u sharaxan xisbiga GSB maantana xildhibaan oo u taagan horna waa u siinay cid allaale cidii GSB ka socotay codka waa siinay adigana waa ku siinay waxaan kugu siinay oo kugu taageernay ururka wadajirka iyo cadaaladda maadaama aad ka mid tahay xilkana u raadinaysa deegaanka aan joogno iyo dhalinyarada aan ka mid nahay ee deegaamada maadaama anagu hadda dadkii intaas ku soo jiray hawlaha aan ahayn aad iyo aadna maanta u dareemaya sharafta iyo quruxda maanta ay ku socoto doorashadu codkayagii waxaan iskugu geynay haddaan reer Bandiirley nahay markii sidaan qiyaasaya teelteel yar laga reebo wadajirka iyo cadaaladda isugu geyn maadaama marka wadajirka iyo cadaaladda aduguna maanta ay garabka ku saaran tahay waxaan leenahay codkayagina waad heshay xilkina waad heshay ku soo dhawow needsame ku soo dhawow midda labaadna waxaan leenahay dawladdan waxaan faraynaa dadku waa tiro badan yahay laakiin sidaan u kala jeclayna aduguna nolol si kala jeclaadaan leenahay insha Allah wadiilaahay ismo dadku waa tiro badan yahay aad iyo aad baa mahadsantihiin anagu waxaan leenahay soo dhaweyn iyo garab qabasho iyo ducayn iyo sheegid inaan sheegno ninkaas inuu mudan yahay iyo inuu mudnayn waxaan cadaynaynaa inaad mudan tahay baan cadaynaynaa iyadaan kugu soo dhaweynaynaa ku soo dhawow baan leenahay aad iyo aadna waa mahadsan tahay sida noo soo dhaweyseen oo sharafta iyo qiimaha leh aad iyo aad baad isku duubni baan kugu mahadcelinaynaa waa idin soo laabanaynaa idin kaba tagi doono kulankeenni koowaad maahan markeenni labaad maahan waa joogtayn doonaa haddii alla yiraahdo baahiyadiina gaarka iyo baahiyada guud intaba qof dhex jooga noqonayna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi